wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo shir jiraayad ku qabtay dowladka degmada Beled Xaawe ee gobolka Gado ayaa si faahfaahsan kaga hadlay qaabka ay dowladda Soomaaliya uga qabatay garoonka duulimaadyada ee Aadan Cadde Muqdisho sababtii ka dambeeyay xarigiisa sidii loola dhaqmay intii uu u xirnaa dowladda Soomaaliya iyo arrimo la xiriira xaaladda hadda ka taagan gobolka Gado. wasiirka amniga Jubbaland Janan ayaa ugu horeyn isdul istaagay ka hadalka waxyaabihii uu kala kulmay dowladda Soomaaliya oo uu xirnaa muddo 5 bilood ah waxa uu sheegay in aan loola dhaqmin si wanaagsan. Janan waxa kale uu sheegay in nasiib darro ahayd in aan lagu xirin xarun dowladeed isagoona xusay in xaafada ay dad shacab degan yihiin marba guri la geynay. Cabdirashiid Janan wasiirka amniga Jubbaland mar uu ka hadlayay sababtii loo xiray waxa uu sheegay in ay ahayd arrimo siyaasadeed isagoona dafiray in wax dambi ah loo heestay. waxaan jeclahay insha Allah raxmaan qayb yar oo kooban oo xaalihii sidii wax u dhaceen iyo wasiira aad u dheer ama xaqiiqiyan siiq aad u fara badan muddada 5 bilood ahayd wixii aan soo maray ama shakhsiyan wixii leegula dhaqmay intaba barnaamij u baahan waqti dheer iyo fursado fara badan lana wadaagi doono insha Allah taala shacabka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta iyo beesha caalamka fadal aad u fara badan حقيقيا أنا أكون أحسن دولة لماذا الصومال لماذا إنتوا ولا أولا وحندري ما أما تعالي قوشديني البركة وقال المقدسة اللي قبتي إن سيكرد والله حد لأن اللي يقف دمبي لا ودمبي الله يسود الشعب اللي باتري لو كان حالنا عشان كلا محارب أنا حاسوسي شعب الصومالي قفك الصوت مغلها يتبع شخصيا عبد الرشيد حال مقدشة رشيدي دي كفر بشي حال وطني تدريني دي أنا كنت بغير اسمها يعسل جبلان وحاقرون كل شبوي حدبانو يوسيرو دولة فدرال الصومالية وحان دقي حروتها مقصودة فرنك الصومالية وحان جوغي لا بشي تدبات سديدين waxaan la kulmay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Farmaajo muddo laba jeer ah oo mid waqti ka mid ah jaanis aad u dheer aan isku helnay madaxweynaha oo aan ka wada hadlaynay qadiyad ku salaysnayd inta badan doorasho la rabay inay ka qabsanto Jubbaland iyo aragtiyo kala duwan oo dowladda dhexe iyo Jubbaland u dhaxeeyay waxaan dhex deganaa taliska isaa hore u sheegay mas'uuliyadda qaranka oo saraakiishiisu ama hay'adda سراكيش وسويسي أنا كنا نبدأ أيضا إلى دور جراء ومثل دقنين أنا دقنين هوتيل وأنا دقنين بريق الحياة لحرب حياة المسؤولية وحان كسوتي بيشي تدبات سنة هرولو ورسديني وحان دبلي وقفتي أنا وأصفر أحمر أنا مقدشو برونك على العدد بيشي تدبات سوداني كمدين بيشي تدبات مرك حاف كاملة وحيث ديس لي بيشي تدبات حاف كاملة بيشي سديدات وصدق يكون دي أكيد مرة يسوي اللي قبتي مين دميله كله مرة هني كله دميله واحد غير كان لكم ما يحرق الدولة عندنا تسبق شعب الصومالي فهمي كران يوقف كستو وحقيقيا أريم الصومالية كور قبو بحي أن كحرنا دمبي ومتصل شعب الصومالي ضدك مدن أن كجل هنا السنة هنا برامج سياسيات قضية سياسيات وطبعا نفكر أركت دولي سيدي وحقورة دولة فدرالة الصومالية سيدي شعب كرهد بلان دنت وذي مسلحة هذا وحقورة بين أركت كل دولي نغطي وبعضي ورشدي بعضي وضي ضواتين كبيش استيباد وصدني كودي ذي نغطي وحملك قف كستو بالآذن أفهم الصوماليات أمر رواينا الحق وحقيقيو شخصيا من دمبيلاء ومد الصومالية شعب الصومالي دمبي كلمة هن حاصل وحكس برنامج كسماي كدعي سيدو دعي كما أنا قناع سنين أو عند دور شنطة بالوضع اللي هو هي خليها يودي مرة سياسة رجال القطاع ويد عدا ترى أرتدون إن أي اعتماد برنامج شيء أنا بروحس كمان كرو لكن هذا من سيد رأي ودور شنطة بالوضع إن أنا حرون دولة أرجل ولا حرم waxaan maqli jiray markii burburka dhacay inta badan dadka shacabka Soomaaliyeed gobolada magaalada Muqdisho ku xirnaayeen ganacsiga ku xirnaayeen aan maqli jiray ninkii hebel ahaa oo ganacsadaha ahaa bakara dad Soomaaliyeed hantidooda ku dhintay aftuub guryo loogu haystaa dad shacab ay leeyihiin
maqli jiray waa dhici jirta saasaa dhici jirtay qaybo ka mid waxaa marka soo baxday in aani markii ay qabtay aan la igeynin wax xarun dowladeed ah hal maalin guryo madaxda dowladda aysan tegi karin xaqiiqiyan riski ah dad shacab oo soomaaliyeed ay dhisteen xaafado duur oo ku yaallo dowladdu aysan kontaroolin baa usbuucyagu guri la igeynayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo sii hadlayay ayaa ka hadlay arrimo ku aadan xaaladda hadda ka taagan gobolka Gado waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya faragelin ay ka wado gobolka Gado waxa uu xusay in nasiib darro tahay in amnigii magaalada Muqdisho ay ka adkaan weyday dowladda isla markaana deegaano nabad ah iyadoo ay xasilooni darro hadda ka abuurayso waxa koonfurta Soomaaliya loogahay saddex magaalo isku furan oo shacab iyo mas'uulba si nabad loo mari karo waxa ka jiro kala xawdoor oo gaadiid intii loo kala raaco cabsi la'aan lagu maraayo jidkeeda inta ayada hado nabad ee maanta inay dowladdu nabad ka qaado oo mas'uuliyiinta dowladda u sareeyay oo ku fikiraan in shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha samafalka ka dhex shaqeynayay ummadda Soomaaliyeed bulshada oo dowladda looga baahnaa qayb badan oo kamid ah u hayay shacabka Soomaaliyeed in khalkhal la geliyo oo shacabka la dhibaateeyo oo hadda dhimasho jirto oo dhac uu jiro oo shacabka khalkhal la geliyo arrintaasna xaqiiqiyan oo arrin aad uga xumahay waxaana dabcan mas'uuliyadooda qaadan doono madaxda Soomaaliyeed oo go'aansatay in dal nabad ah ciidamada Soomaaliyeed ay joogaan oo gorowaasha dowlad goboleedka Jubbaland ay leedahay khalkhal intaan la eegin dhibaato intaan la lagu sameeyo iyadoo waxa laga dirahay tahay hebel baa nacab abuul darra ah hebel baa nacbahay ama hebel baa nacbahay in shacab Soomaaliyeed noocan loogu galo arrin xaqiiqiya aad u darro ah waxa kaloo nasiib darro ah magaalada Muqdisho aan ku xirnaa shantii bilood oo aan afduubka lagu haystay maalin aysan dhibaato ka dhicin oo aan qof lagu dilin ama bisoolada lagu dilo ama bomba meel lagu tuuro ama qaraxa ka dhaco oo sidii kii hadda kontarool ka dhaco kala shacab Soomaaliyeed oo fara badan iyo dad ummadda Soomaaliyeed dowladda kale oo nikalkaalaya inta wax lagu laayay waxa xaqiiqo ah in amniga magaalada Muqdisho wasiir ah ummadda Soomaaliyeedna ay wada fahmayso og tahay oo Muqdisho iyo afgooyo 30 kiiloomitir dowladda ay kontarool la 30 kiiloomitir afgooyo iska daa Muqdisho gudaheeda dowladda ay kontarool la hal jid oo kala xiran oo qof mas'uul ah qof aan hel u mari karin 24 saac ay dhibaato ka dhacdo gobolka iyo degmooyinka nabad ahna amniga laga qado barnaamijkan la sameeyo wasiirka amniga Jubbaland ayaa hadda waxa uu ku sugan yahay deegaano ka tirsan gobolka Gado oo xiisad u dhaxaysa Jubbaland iyo ciidamo ay geysay dowladdu ay ka taagan tahay isagoo si gaar ah ugu sugan deegaan duleedka ka ah degmada Beled Xaawo ee gobolka Gado